وهجاج daawadayaal waxaa nagala socotaan wariye Cabdikhadar Maxamed kalgacal wararka markaasi ina soo gaaraya hadda gobolka Hiiraan ayaa gobolka Hiiraan waxay sheegayaan in saaka aroortii horeeto kooxda Al-Shabaab ay weerar dhabagal ay ka fulisay qaybo kamid ah gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka Soomaaliya kaas oo sababay khasaare xooggan weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay hoolka loo yaqaano afar iridoodka oo ku taala duleedka magaalada Beledweyne sida ay noo sheegeen ilo markaasi dadka deegaanka ah xogaga weerarka fuliyay ayaana gubay ku dhawaad 10 gaari oo ay la socdeen dad shacab ah waxayna sidoo kale rasaas ay ku fureen sida naloo soo sheegay dadkii saarnaa baabuurtaasi mid kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay ku dhawaad 20 qof isla markaana lagu gubay 7 gaari kuwaas oo ka baxay markaasi magaalada Beledweyne dhanka kale tana dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaasi war-saxaafadeed ka soo saartay ay ku sheegaysa markaasi inay ka xun tahay weerarka wuxuushnimada ah ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen dadka rayidka ah kuna gubeen markaasi hantidooda ee ka dhacay deegaano hoostaga degmada Maxaas wixii warar ay ku soo kordhaa wararkeena dambeeto ayaad ku daawan doontaan